ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum saaxiibayaal. aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa wallahi xaqiiqatan sababtoo ah waxaan aad ugu faraxsanahay inaad ku soo biirtaan horta kanaalka sahanka dunida. Hal maalin ayaan waxaan helnay subscribe-kii ugu badnaa macnaha 50 qof iyo ka badan qiyaas hal maalin ina 50 qof ka badan ay saasay tahay qolada YouTube-ka waxa ay inoo qabatay 60 maalmood si loo aqoonsado kanaalka sahanka dunida. kaliya marka waxa u baahannahay in aad idinkana caawisaan oo maxaa nagu caawinaysaa kanaalka inaad share gareysaan oo aad gaarsiisaan 100 qof haddii aad gaarsiisid 60 maalmood waxa nagala rabo wax ka badan ay heleynaa. Marka si aad wax iga dhigtaan oo aad kanaalka wax uga dhigtaan waxa u wada baahannahay inaan is caawino kaliya inaad share gareyso muuqaalada oo aad like gareyso mar walba ay ka soo horbaxaan waxaana qasab ah inaan gaarno meesha nagala rabo. Waa dalka ugu awoodda badan dunida, waa kuma dalka ugu qanisan adduunka, waa kuma dalka ugu dhaqaalaha badan dunida. su'aalahaasi oo dhan jawaabtoodu waa dalka Mareykanka, maadaama uu dalkaas yahay dalka ugu horeeya xagga awoodda ciidan iyo tan dhaqaale. si kastaba ha ahaatee daarahaasi dhaadheer iyo miisaaniyadaasi aadka u faraha badan waxaa jira dhul u dhow inuu burburo, daciif ah oo jilicsan, faqiirna ah oo bulshadiisanu u dhowdahay inay burburto. dabcan wejigaasi warbaahintu ma soo bandhigin. Mareykanka waa waddan aad u xoog badan, ilbaxnimona leh, laakiin waxaa jira dhinac mugdi ah oo dhan walba ah. waxaan kugu sharaxayaa saaxiib muuqaalkan in uu gabi ahaanba bedeli doono aragtidaada ku aadan dalka Mareykanka. taariikhda Mareykanka waxa ay bilaabatay gumaysigii Ingiriiska kadib markii uu gumaystihii Ingiriiska dhameeyay dabargoynta dadka Mareykanka u dhashay. waxa uu bilaabay inuu qabsado dhul cusub maadaama uu hirgelinayo gumaysigiisa, waxayna deegaanadaasi bilaabeen inay qaabilaan dadka Ingiriiska. sanadku markuu ahaa 1776 kooxihii la gumaysanayay waxay go'aansadeen inay iska saaraan gumaysigii Ingiriiska ayna dhistaan dal cusub, waana dalka Mareykanka. kadib gumaysigii waxay ku guuleysteen dalabkoodii ahaa dagaalkii xornimada. laga bilaabo waqtigaas waxaa bilaabmay waxa loo yaqaano riyada Mareykanka, halkaasi uu ka heli karo qof walba waxbarasho iyo daaweyn, xitaa shaqooyinka ugu fiican inaad ka shaqeyso. intaas kadib aan barano Mareykanka dhabta ah. tan koowaad, inta badan dadka Mareykanka ah ma haystaan wax keed ah. badbaadinta lacagta waxa ay muhiim u tahay qoysaska kuwaasoo ku nool dalalkoo dhan, sababtoo ah musiibo ayaa dhici karto. waxaa lagugu qasbi karaa inaad isticmaasho lacag fara badan. 45% dadka Mareykanka ah ma haystaan wax keed ah. 24% waxay haystaan in ka yar $1,000, taasi oo macnaheedu tahay in Mareykanku uu la ildaran yahay dhaqaale dari. qofka shaqaalaha ah haddii laga soo eriyo shaqadiisa isbuuc gudaheeda hadduusan shaqo ku bilaabin wuxuu u soo dhammaan doonaa inuu wadooyinka jiifo. midda labaad, Mareykanku waxaa haysto dhibaato guri la'aan. dhibaatada guryaha waxa ay soo baxdaa marka ay dadka awoodin inay kireystaan guri ama ay iibsadaan. inkasta oo ay leedahay malaayiin kiiloomitir oo dhul saxara ah iyo keymo aysan u baahnayn, Mareykanka waxaa jira dhibaato guri oo aad u xun. qofka 50% mushaarkiisa waxa uu ku bixiyaa kirada guriga. midda saddexaad, jaamacaduhu ma ahan mid cid walba u furan. waxbarashada jaamacadeed waa mid ka mid ah aasaaska ugu muhiimsan ee ilbaxnimada wadamada. wadamo badan ayaa waxbarashada lacag la'aan ku bixiyo, halka Mareykanku jaamacadihiisa aysan ahayn, maadaama jaamacadaha Mareykanka ay aad qaali u yihiin oo ay dadku ku qasban yihiin in ay deyn ka amaadaan bangiyada si ay u bixiyaan 30 sano kadib qalinjibintooda. dabcan Mareykanka waxa uu leeyahay jaamacadaha ugu fiican adduunka, laakiin tani maahan marmarsiyo, sababtoo ah 62% dadka Mareykanka ma haystaan waxbarasho. hal muuqaal kuma soo koobi karno waxyaabaha naga qarsoon, laakiin